waxyaalaha ugu la yaabka badnaa ee isoo maray waxaa ka mid ahaa inan yaroo shabada oo aan isiri waa 18 jir ayaa mid khuraafaadla ah loo geeyey wuxuu ku yidhi jin baa madaxa kaga jira haye markaa jinkii baan ka saarayaa waa kow wuxuu soo qaatay tuubada yar ee dhuuban ee sharaabka lagu nuugo ayuu soo qaatay dhegta ayuu ka geliyey waa ku dharbaaxay xuubkii dhegtu waa qarxay markuu dhiiggii soo yaacay baa wuxuu haa waka sixirkii wuu soo baxay inantii oo dheg beeshay baa la ii keenay lacagna waa laga qaaday lacagna wuu ka qaaday naxariis darro ah inantiina dhegtii way dhimatay waana khuraafaad noocaas oo kale ah waxyaalaha intaan halkaa fadhiyay igu soo maray tiro iyo cadatoona male waxaa iga sii yaab badnaa oo iyana meesha igu soo maray intaan fadhiyey ilaahay jecela muxuu jiray arwaaxaygu waxaan shayaadiinuun la kulmo waxay sameeyeen ii sixiroolayaa halkan mid baa deganaa New Hargeysa wuxuu yidhi waxaan rabaa gabadh shaqaale ii noqota waa dadku waxay u yaqaaniin wadaadee dadka dabiiba wadaadnimadiina way dhimatay qof walba wadaad baa lagu sheegaya qof walba sheekh baa lagu sheegaya ta'yiidkana shacbigaa bixinaya waxaan la yaabaa nimaan injineer ahayn injineer ma yidhaahdaan nimaan dictoor ahayn dictoor ma yidhaahdaan janan nimaan ahayn janan ma yidhaahdaan nin walba taytalkiisa waa loo ilaaliyaa laakiin taytalka meesha ku dhintay ee halaagsamay waa taytalkii culimada habar aan salaad tukanin oo faatixada sixi karaynin baa la leeyahay sheekhad baa loo tegayaa mid sixiroolo ah oo dadka halligaya la leeyahay sheekh hebel baa halkan fadhiya sheekhnimo way ku dhimatay ninkii wuxuu yidhi habluu dirtay wuxuu yidhi waxaan rabaa inan guriga iga yara masmasaxdo ii adeegta deedna waxay soo heleen gabadh 2 carruura agoona haysata naahedhe sheekh halkanoo dadka dabiibabaa u baahan gabadh dhulka ka masaxdee dee maad u shaqayn markaasita waa u baahanahay carruurtaan dee waxoogaa ku korsanaya 7 aroornimo ayaa loo geeyey 8dana wuxuu la ballamay islaan khadra la yidhaahdo sakaraada oo uu yidhi xanuunkaan ka wareejinaya xanuunka ayaan ka rogayaayoo aan ku wareejinayaa qof tan markaa uu u yeedhanayana shaqo uguma yeedhanaya wuxuu rabaa inuu sixirka ku wareejiyo markay inantii timi ee ay shaqadii weydiisay bay tii yidhi yara sug waxoogaa markay sugtay baa islaantii oo garbaha lahayaa la keenay deedna inantii ayuu u dhiibay weel biyo ku jiraan markaasuu yidhi weelkan cab markaasay tihi de waxaynu ku heshiinay ma ahayn weel inaan biyo cabo shaqaad ii sheegtay shaqadii ii tilmaan iyadii oo iska baraad labo halkaa ku dhuftay tawaadda way gagabtay intii ay gagabsanayd buu waraabiyey biyihii inantii jin baa galay oo ku adeegsaday oo khaadima sixri baa galay inantii way rafaaday islaantii sixirka laga wareejinayana habeenkiiba way dhimatay tii sixirka laga wareejinayana habeenkiibay dhimatay inantiina saaxir baa lagu salliday jin baa lagu salliday khaadim u ahaa sixirkan ilaa heerkaasay maraysaa waxaan markaa ka wadaa muhiimadda uu leeyahay in la ogaado sixirka iyo saaxirka muhiimadda ay inoo leedahay nolol ahaan muhiimadda ay inoo leedahay waxa weeyaan dadku way wada bacaysan yihiin way wada khaaqsan yihiin ummaduhu markay dagaallo ka soo baxaan ee mashaakilaad ku yimaadaan ee ay qaxaan waxyaalo badan oo cudurro ah baa soo ifbaxa cudurradaasi waa cudurro xagga nafsiga ka imanaya deedna khalqi badan oo amraad nafsihi ay hayso ama mukhaadaraadkan la isticmaalaya uu maxaanku dhahdaa dhaawac u geystay maskaxda ayaa waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inuu sixir hayo sixirna ma ahe waa mashaakil kaloo nafsi ah marka in qofkii uu kala garto maxaa sixira maxaa cudur kale ah ogaanshaheedii muhim buu noqonayaa cilmigan sixirka lagu yidhaahdo shareecada islaamku muhimmad gaara bay siisay
waxaa ka mida muhimaadka shareecada islaamku ay sixirka si ay looga badbaado ay u siisay qadaayaadka iyo arrimaha caqiidada marka bini aadmiga looga digayo waxa ilaahay soo diri jiray rusul bini aadmi ah qadaayaadka caqiidada kale oo dhanba waxa ilaahay uu soo diri jiray nebiyaal bini aadmi buu soo diri jiray laakiin qadiyat as-sihr si bini aadmigu ay u gartaan muhiimadda iyo culayska uu leeyahay rabbi wuxuu u soo diray laba malag haaruut iyo maaruut baa la kala yidhaahdaa sixirku culayska uu leeyahay iyo halista uu leeyahay si ay aadamuhu u fahmaan waxa ilaahay uu soo wakiishay oo rasuul uga soo dhigay inay masalada kufrigeeda bayaamiyaan malaa'ig buu ilaahay soo diray suurada basharka oo kale leh ummad qabiil kasta waxaa loo dili jiray rasuul in masaladan muhiimaddeedu hal malag baa ku filaa hal malag oo fariinta u soo gudbiya aadamaha ayaa ku filaa laakiin si arrinta muhiimaddeeda la inoo dareensiiyo ayuu ilaahay laba malag soo diray inta aynu ka naqaano ummadaha ilaahay nebiyada bini aadmiga u diray nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun labadaa nebi baa fircawn loo diray weliba nebiyullaahi haaruun wuxuu nebi ku noqday codsigii walaalkiis wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asrii wa ashrikhu fii amri nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa hal mar fircawn loo wada diray diritaankaasina wuxuu ka dhashay baryadii uu nebiyullaahi muuse ilaahay ka baryey oo ilaahay ka aqbalay hal mar bayna dhacday in ilaahay uu saddex rasuul iska daba diro id arsalnaa ilayhim ithnayni fakadabuuhuma facasasnaa bihaaliثin waxaa la yidhaha saddexdaa nebi ee la diray may ahayn nebiyaal risaalad madax bannaan wata waxay ahaayeen ummaddii nebiyullaahi ciise ayay ahaayeen marka waxay boodhka uun ka tumayeen caqiidadii nebiyullaahi ciise uu ka tegey ee may ahayn rusul kutub madax bannaan loo soo diray qadiyadda sixirka unbaa laba malag oo wada socda ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala waxaanu sidaa u yeelay inuu ina fahamsiiyo culayska iyo muhimadda uu leeyahay sixirku culayska uu leeyahay marka mawduuca kan sixirku wuu ka hadal badan doonaa mawduucii hore aynu ka hadlayn aad buu uga hadal badan doonaa waxaanan in sha allahu isku dayi doonaa inaan qalcad kasta aan gacan gelinno si arrimuhu waadix inoogu noqdaan mawduucanna uu noqdo mawsuuco iyo encyclopedia dib ay u raacaan da'yarto oo ay wax ka ogaadaan dhibaatada uu sixirku leeyahay aad baan haddii alla yidhaahdo daraasad aan uga soo sameeyey waanan idiin soo bandhigi doonaa in sha allahu tacaala min alif ilaa yaa intii aan ka kari karo waxaan isku dayi doonaa uun hadday cid iiga daba timaado mawduuca inay sii kabta ay doonto inaanan culays badan uga tegin meelaha uun aan ka booday inay kabi karaan mawduucan sidaa og tihiin sixirka anuu weli ma ogi culimmada dalkeenna cid intay u diyaargarowday xaqiiqadiisa iyo sirtiisa iyo isticmaalkiisa xaaraanta ah cid kashafta oo bayaamisa oo xidhiirka ka dhaxeeya caqiidada iyo sixirka ee koontaradayso ah cid bayaamisa intaan anigu ogahay maan arag kaalintaasoo haddii alla yidhaahdo igu keliyaysatayba waxaan isku dayey inaan daraasad laxaad leh aan ka sameeyo sahankaana waxaan ku maqnaa sanad iyo 5 bilood baan ku maqnaa sanad iyo 5 bilood ayaan daraasadda samaynayey wixii iiga soo baxayna waan idinla wadaagi doonaa waqtiga intaas la-eg wixii iiga soo baxay haddii ilaahay ka dhigo waxaan jeclahay si hagar la'aana waxaa kaloon diyaar u ahay in sha allah mawduuca wixii su-aala ay iga weydiin doontaan inaan fadhigii walba 15 daqiiqo idiin soo reebo oo fii hada almawduuc xawla hada almawduuc nin walbaaba wuxuu gocanaya ama way weydiiyo oo maalintaa markaa muxaadarada aan gala ku saabsan waayo wixii soo socda gadaal baan ka gaadhi doonaa si wakhtigu inoogu kaydsamo waxaan isku dayi doonaa biidni illaahi albaari
inaan waqti idin siiyo 15 daqiiqo ah oo su'aalaha muhiimka ah ee mawduuca aan ka hadlay khuseeya inaan idin la wadaago insha Allah ta'ala intaanan mawduucan mugaale ee culayska leh intaanan gudagelin waxaan jeclahay inaan caawa ku soo ururiyo intaan ka gaari karo si ay ila saan qaadaan dad badan oo aan casharadii hore la soconin ayaa jira inaan si guud mar ah qodobada ugu muhiimsanaa ee casharadeenii hore 11 ahaa inaan isira dul taago oo aan qodobka iyo qodobka xasuusin wixii ka dambeeya markaa inaga oo isla fahmayna inaan halkaa ka wada anba qaadno waayo waxaan idinku yidhi casharkii 11 ahaa aynu soo qaadanay wuxuu gogol dhig u yahay casharkeennan hadda aynu bilaabayno ee 6 qodob ama 6 jibsimood aynu u kala dhignay waxaynu hore uga soo hadalnay aktarka iyo faacilka sixirka handariya waa shaytaan iyo jin caasiya iyo shaytaan iyo ciidankiisa labadaasa yani lagu shaqaystaa marka waxaan isku dayay casharadeenii hore inaan ka jawaabo jin maxaa la yidhaa kelmadda jin waa maxay casharadeenii horey ku jirtay waxaa kaloon ka jawaabnay asalka jin muxuu ahaa muxuu jinku ka samaysan yahay waxaynu soo tilmaanay inuu naar ka samaysan yahay su'aal baa markaa dhalatay oo waxaa la yidhi jinka waa la cadaabayaa haddii la cadaabayo isna cadaab baabuu ka samaysan yahay cadaab muxuu ka gurayaa min maarijin min naar isagaa olol kaba samaysan wa khalaqa aljanna min maarijin min naar isagii baa naar ka samaysan maxay naari ka taraysaa su-aashaasna waan ka jawaabnay waxaynu nidhi marka hore agleelkiisii hore iyo bilowgiisii hore ayaa maadadan ilma aragtayda noqon doonta ayaa ilaahay ka unkay laakiin jeerkan maanta ah kama samaysna dabkii waqtigan xaaliga ah jin iyo shaytaanku midna dab lagu gubanaya ma ahan waxaynu soo qaadanay axaadiid fara badan oo nebigeenna laga wariyay salawaatullahi wasalaamu calayh waxaynu xadiid saxiixa ku tilmaanay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaatuleyl tukanaya inuu cifriid jinihii soo weeraray isaga oo dhimbiil daba wata oo doonaya nebiga inuu wejiga kaga gubo markuu sujuudayey calayhi salaatu wasalaam deedna ilaahay u fududeeyo nebigii uu qabtay jinkii su-aal baa marka aynu ka jawaabaynaa oon odhanaynaa hadduu isagu dab ka samaysan yahay wax gubaya muxuu uga baahday inuu dhimbiil daba soo qaato muu gacantiisa un saaroo ku gubo wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay awood u siiyey inuu jinkii soo weeraray cunaha qabto dabadeedna carabku ka soo dhacay oo dhareerkii ka soo da-ay gacantiisa ay qooyeen qabow inuu ahaa dhareerkii jinka ka soo yacni daatay inuu qabow ahaa marka maadada hore uu ka samaysmay ayuunbaa ah dab ee hadda dab ma ahan sida inaguba maanta aynaan dhoobo u ahayn oo haddaad roobka u baxdo aanad dhoobada ku milmaynin iminka roob hadduu inagu do-o miyaynu milannaa ma milmayno waynaga roobka iska dhex soconno wax alaale waxay naga soo dacayaani jirin maca anna asalkeena inuu ilaahay dhoobo ka abuuray waa khaaliq ilaahay siduu doono wax u abuuraa axad dhoobo ahaabuu ilaahay basharkaa aan haddana biyaha ku milmaynin ilaahay ka dhigay taasi waa intaa waxaynu isweydiinnay mataa khuliqa goormaa ibliis iyo shaytaan goormaa la abuuriyo jin isku wada qaado waxaynu sheegnay inaynu bidaat taariikh u garanayn in la abuuray laakiin inuu ka da'wan yahay basharku bay sheegnay inuu jinku ama shaytaanku ka da'wan yahay bini aadmiga ayaynu carabownay waxaa kalaynu tilmaannay asmaa'da kala duwan ee jinku leeyahay wax ka mida baynu wax ka sheegnay waxaa kalaynu tilmaannay maxaa farqi u dhexeeya jin iyo shaytaan jinow maxaa tahay shaytaanow maxaa tahay casharadeenii hore ayaynu kaga jawaabnay waxaa kalooynu ka warrannay inta qaybood ee jinku u qaybsamo oo xadiid saxiixa oo nebigeenna ka sugnaaday oo tilmaamay qayb reer guuraaya inay jiraan qayb hawaa'ihiina inay jirto qayb xayawaanka isku soo suuraysaana inay jirto saddexdaa nooc buu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jinku inuu u qaybsamo waxaa kaloo aynu ka hadalnay
xayawaanada aynu dhaqanno qaar ka midii inay ilaahay awood u siiyey inay jinka arkaan sida dameeraha oo kale nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markay ciyaan shaydaan bay arkeen uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aynu su-aal kaga jawaabnay shaydaanka odayga weyn ee shaydaanka ibliiska la ydhaa ma jinkuu ka mid yahay mise waa aabbaha jinka ma jinkuu ka mid yahay mise isagaabay ka farcameen jinku masalada iyo culimmadu halkay ku arooriyeen waa inagii ka warrannay waxaynu markaa khulaasadii nidhi kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi isagu jinka ma dhaline ka mid buu ahaa waxaynu tilmaannay cidda ay ka tafiirmeenna inay ahayd jaan sida inagu aynu aadan uga tafiirannay wa khalaqa aljaanna min maarijin min naar qur-aankaa caddeeyey in asalka jinku inay ka yimaadeen oday jaan la ydhaa sida asalka insaanku ay oday aadam la ydhaa uga abuurmeen taana waynu ka soo qanacno waynu ka gudubnay waxa kaloo aynu ka warrannay muxuu cunaa jinku labaynu u qaybinnay mid hawaa'i ahoo aan cunto u baahnayn iyo mid wax cuna oo waxaynu cunno iyo waxaynu cabno iyo tafiirba sameeya waynu ka soo warrannay waxaa kalooynu ka warrannay jinku qaalibkiisu inuu dhadig iyo labood leeyahay ayaynu ka warrannay waxaa kaloo aynu ka warrannay su-aal isweydiin lahayd oo ah jinka iyo insigu ma isguursan karaan ama xidhiidh gogoleed ma dhex mari karaa masaladaana waynu ka hadallayoo culimmada islaamku waxay ka yidhaahdeen iyo halkay arrintu ku soo biyo shubatay waa inagii ka warrannay saddex bay u qaybsameen culimmadii masalada ah qola waxay tidhi waxaa suurtagal ah may waxaabay yidhaahdeen waxaa ka mid a ragga maxaanku idha arrintaa calanka u sida imaam siyuuti oo kale waxaanu soo naqilayaa kutubtiisa aathaar iyo warar badan oo salafka laga hayo iyo culimmadii diinta oo tilmaamaya in jin iyo insi isguursadeen ibnu taymiyana raxmatullaahi calayhi majmuuca alfataawihiisa maxaanku idhaahdaa jiska 19 safxadda 930 wuxuu ku odhanayaa waqad yatanaakaxu اlinsu waاljin wayuuladu baynahumaa walad wahada akthar macruuf way dhici kartaa in jinka iyo insigu isguursadaan way dhici kartaa dhexdooda inay carruuri ka beeranto waana masalo caan ah oo muranmadoon ah habeenkii aan halkan fadhiyey masaladaa ka warramayna waxaan tusaale u soo qaadannay reer barigaa dega oo odaygu markii uu sii dhimanayey carruurtiisa la dardaarmay oo ku yidhi geelaa waa la idinla leeyahay geelaa waa la idinla leeyahay laba nin baa idinla lehe dhaxalkooda meel u dhiga odaygii markii uu wafaaday dhallinyaradii ay shirtay oo yidhaahdeen waryaadheen ma cidaynaan arkayn oo aynaan garanayn baynu xoolaheenna qayb intaynu xero uga oodno iskaga tagnaa hor odaygii dhimaya waxayna inoo qaybiya geelii saqdii dhexaa la dareersaday waxaan soo helay iimaan sheekh iimaan awowgii buu ahaa ninka dardaarankaa ka tegay geeloodii la dareersaday imaan maxamed diiriye ayaa igu yidhi annagay nagu dhacday qadiyadaasi oo reerkayagay ahayd marka masaladaasi ku-tiigaal ma leh oo carruurna way isu dhaleen waanay isguursadeen wax bayaamin badan u baahan ma ahan culimmada qaarkoodna waxay idhaahdeen horta nas diidaya inay isguursadaan annagu ma hayno laakiin annagu karaahiyaan u arkaynaa sababta oo ah hadallada ugu fiican waxaa wax ka yidhi imaam maalik binu anas raxmatullaahi calayh wuxuu yidhi anigu wax nas caddaynaya jin iyo isma guursan karaan anigu ma hayo waxaanan qur'aanka ku haynaa lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan markuu ilaahay xuralcaynta ka warramayey inaanay jin iyo insi midna u galmoonin ayuu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay markaa labadaasi inay maxaanku idhaahdaa ay nikaax wada samayn karaan waa wax iska cad buu yidhi laakiin anigu masaladaa karaahiyaan u haystaa waxaanan u kahanayaa waxaa dhici karta gabadhi intay uuraysato dabadeedna la yidhahnaa uurkan yaa kuu yeelay oy maxay tidhaahdaa jin baa i guursaday oo dabadeedna masaladii sinadu iyo fasahaadkii fisqigii
inuu daliil yeesho maxaa lagu raad gato inay taasi badataan anigu diidaya laakiin sharciyan wax nahyinaya anigu garan maayo culimada qaybta saddexaadna waxay yidhaahdeen aslan in guri laga samaysto jin oo jin la guursado annagu uma aragno waayo markuu ilaahay qur'aankiisa ka warramayay ee qofka ragga bini aadmiga ugu abaal sheeganayay inuu laba is qaadan kara inuu ilaahay ka dhigay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha ilaahay manigiisa iyo abaal sheegashadiisa wuxuu ka dhigay laba qof oo bini aadmiyaha oo isruux garanaya oo isfahmi garanaya inuu ilaahay isu sameeyey haddii xuduuddaa laga gudbana faham daraa dhacaysa oo saddexdii shardi ee ilaahay uu inoo geliyey labadan jinsi ee bini aadmiga meesha laguma helayo sakiinadii ma imanayso mawaddadii iyo raxmadiina ma imanayso waataan idinka warramayay habeenkaa inaa xasuustaan ma aqaane nin hilibla ahaa oo reer Hargeysa ahaa halkan hiliblaha ayaa galab walba marka casarka gobolku sii dhacayo baa gabadh qurux badan oo isa soo cadrisay waxa weeyaan 70-yadii ayaa hilibka wixii baaqi ku noqday ee ku baarixiyoobi lahaa bay ka iibsataa way iskala tagtaa lacagtana way siisaa maalintii dambe uu cilaaqay naaheedhe maalin walba waa adiga ii faaruqiye arrinkaaga muxuu ahaa cid kalena kama iibsatid aduu la isyaro cilaaqiyo dabadeedna sheekadii way isugu duba dhacday markaasuu yidhi caawa ma ku raacaa markaasay tidhi haa way kaxaysay dabadeedna xaggaa iyo waxay ula kacday naasa hablood waxay geysay dhul wada iftiimaya oo laydhka ka baxaya aada yaabtiyo mandaradaha ku yaalla dhowr maalmood bay kaxaysay waxay kula ballantay waryaahe yaan salaadda subax lagugu addimin guriga salaadda subax haddii lagugu addimo adigaa yaqaan maalmaha habeenada ka mid a baa hurdadii la tagtay deedna sidii bahalkii biriishka ka dhacay baraarugay goorda soo baxay barqu iska kacay isaga oo jiife meel gudaafada oo dambaska ku galgalanaya ayuunbuu soo kacay markuu soo kacay ayuunbaa qalbigiiba qaracmay tolla ayama naag jinaan maxaan ku idhaahdaa la jiifay waa waashay waa meelahaanu marmari jiray Hargeysa dadkii reer Hargeysii hore way garanayaan marka waxay leeyihiin culimadu arrintaas annagu ku talimayno mana bannaana maadaama aan mawaddana laga helay raxmana laga helay sakiinana aan laga helay mawduuca aad baan uga hadlay ninkii xiisaynaya halkiisii ayuu u doonan doonaa insha allahu tacaala wax kaloo aynu ka jawaabnay jinka iyo shaydaanku ma dhintaan qabla albictha intaan laysa soo saarin ama suurta ugu dambaysa intaanay gaadhin jinka iyo shaydaankuba way dhintaan ballanqaad waxaa haysta oo keliya odayga weyn ee ibliiska weyn kaasunbaa haysta ballanqaad ah andirnii ilaa yowmi yubcathuun weliba dalabka uu dalbaday xaasidnimadiisa tafiirtiisa kuma darin ifraad buu cabiray andirnii ilaa yowmi yubcathuun ilaahayow iska kaydaa muu odhanin ilaahayow aniga iyo tafiirtayda iyo inta ila shaqaynaysay ciidankayga iidaa ma odhan marka isaga weyn mooyaane inta kaleo dhani way dhintaan cimri baanay ku dhintaan ajashooda ay ku dhintaan jinka iyo shaydaankuba way dhintaan waxa kalooynu aada uga warrannay meelaha ay ku badan yihiin masaakinta ay degaan iyo meelaha ay fadhiistaan waynu ka warrannay waxaa muhiima inaan baraarujiyo amaakinta ay shayaadiintu fadhiisato waxa weeyaan meesha cadceedda iyo hadhku ay ku kala rogmaan cadceedda iyo hadhku meeshay ku kala rogmaan inaad fadhiisato jidhkaaga qaybna cadceedda aada u dhigto qaybna aada hadhka dhigto nebigu wuu mamnuucay salawaatu ullahi wasalaamu calayh imaa inaad cadceedda wada aaddo imaa inaad hadhka wada gasho mooyaane inaad jidhkaaga qayb ka midina hadhka ay joogto qayb ka midna ay cadceedda joogto waa masalo uu rasuulkeennu mamnuucay xikmadda ku jirtana waan ogaaday dhowr qof oo sidaa yeelay waxaa la iigu keenay cilaajka iyagoo faalij ku dhuftay sababta oo ah jidhkeennan dhiig baa dhex wareegaya
qaybtaa kulaylka markuu marana dhiiggii wuu kululaanayaa isagoo meel kulayla soo maru markiiba haddana jawigii qaboobaa ee waaxda kale buu soo marayaa xawaarihii laxaadka lahaa uu ku socday baa isdhimayaa dabadeedna waxaa imanaya xawaarihii dhiigga ayaa khalkhalaya marka waxaa suurtagal ah inuu xawaaraha dabadeedna maskaxda uu dhiig ku furmo ruuxa rasuulkuna waa mamnuucay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ruuxu inuu qaybna cadceedda ku fadhiisto qaybna uu fadhiisto haddii alla ka dhigo meesha hadhka ah labada dhanuun raac baa la yidhi marka masaladaa cilmiga ahina saasay u jirtaayoo qofka muslimkii inuu naftiisa u tiro halis badan baa ku jirta marka maanica diiniga aba laga yimaado